بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. mar labaad waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijkan oo quraanka iyo aynu kaga hadlayno iyo xiriirka qofka muslimka la doonayo inuu ka dhaxeeyo inuu bixino quraanka iyo adiga sideen barnaamijkii koowaad ku sheegnay insha Allah hadii la yiraahdo usbuuci kasta ama maalintii kasta barnaamijkan baxaba waxaan insha Allah ku soo qaadi doonaa aayad ama aayado wada socdo quraanka oo insha Allah biidnillaahi kariim isku day doono inaanu sharaxno si aan insha Allah hadii la yiraahdo walaalaha dhageysanaya ay uga faa'iideystaan mar labaadna insha Allah hadii la yiraahdo quraanka heshiis iyo xiriir cusub ay ula yeeshaan waxaan ku bilaabaynaa insha Allah hadii la yiraahdo suuratul baqara aayada kamida waxaan soo qaadanaynaa maanta barnaamijkan aynu ku eegaynaa aayada 22aad ee suuratul baqara suurada la yiraahdo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آياتكم باللباتنات نشيغني وحنا الله سبحانه وتعالى معنيه ذا في صوماليا نقول ساددوا دنو إلهي عابده الذي كيدن كأبوري ما يعني هذا الذي خلقكم كيدن أبوري يدد كيدن كهريبا waxaad mudantiin hadaad ilaahay caawudaan inaad alla ka baqataan oo idinka iyo naarta dhexdiina wax aad kala dhaxdhigtaan sida yeela macnaheedu waa sida horta af Soomaaliha kadibna waxaanu iimaanaynaa sharaxeeda suuradan hadaad akhridaan intiina quraanka akhrisatay insha Allah sadooda ogtihiin bilowga suuradan ilaahay wuxuu kaga hadlay saddex nooc oo dadka bini'aadmigu ay ka kooban yihiin wuxuu ka hadlay dad la yiraahdo muttaqiin waa dadka markasta alla ka cabsada wax kasto yiri ba sameeya oo hoggaansan yaani dadna wuxuu ka hadlay dad diiday oo gaalo ku sheegay kaafiriin kadibna wuxuu ka hadlay dad nooc saddexaad oo in badan aayado badan ka hadleen waa dad la yiraahdo munaafiqiin waa dad sheegtay inay muslimiin yihiin laakiin qalbiga been gaalnimo ka wata oo aan ilaahay rumaysnayn afka waxay leeyihiin muslim baanahay quraanka kula akhrinayaan way rumaynayaan la ilaaha illa muhammad rasuulullaahi kuleen kadib laakiin waxay sameynayaan waxaan ilaahay raali ka yar nabigiisuna raali ka hayno waa yaani qalbiga waa ka gaalo dusha waa ka muslim way kula tukanayaan sadaqada kula bixinayaan laakiin ma aha muslimiin saddexdan nooc markuu ilaahay ka soo hadlay bini'aadmiguna saddexdaas bay ka koobmaan mid rumeeyay mid diiday iyo mid munaafiqaynaya saddexdii ilaahay markaa la wada hadlay wuxuu sheegay arimahan markaa aayadu ka hadashay markuu ugu horeeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kula hadlay magaca bini'aadnimada ee ka dhaxeeya ka muslimka ka aan muslimka ahayn iyo ka munaafiq ahba naas baa la yiraahdaa bini'aadmi marka bini'aadnimo ula wada hadlay markuu taa ka tagay kadib arin muhiim ah ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadan ku sheegay wuxuu ku sheegay ilaahay inuu iyaga abuuray wana marka hore la isla gartaa mushkilad baa bini'aadmiga maanta haysta sababta dadka qaar u munaafiqaynayaan qaar koodna ay u diideen inay rumeeyaan waxa weeye ilaahay inuu abuuray baana in badan qirsanayn dhowr arimood aayadu markaa ka jawaabaysa marka hore waxay ka jawaabaysaa arimaha dadka bini'aadmiga maanta maskaxdooda waalay waxa kamid ah yaa ku keenay adduunkan yaa ku keenay adduunkan waad joogtaa yaa ku keenay bini'aadmiga intooda badan ma garanayaan yaa keenay waxay ka jawaabaysaa yaa ku irsaaqa oo yaa cuntada ku siiya yaa dhulka ku wax kaaga soo saara yaa cirka biyaha kaaga keena yaa rabbi kuwaasi fudud waxay ka jawaabtay marka alladhi khalaqakum baytiri idinku idin abuuray yaa kala ku abuuray bal bini'aadmigu dhan waxa tiraahdaa idin abuuray dadka qura ka jawaabi kara waa dadka quraanka haysta ويقولون كم كتشوا سؤاشا هو الذي خلقكم بإلهي وكيدا أبوري الذي خلقكم كي أبوري هو الذين من قبلكم يدد كيدين كوري بين آدم كورا مركا لغا صوب بلا وقت أدون كي يمادين واتقانا نمك الضوضب بدن باكتشرا أدون بين آدم كسي كي يمادين
raggeena dadkeena ku nool galbeedka muddada haddaynu dadkeen la nool aynu weydiisano war bini'aadmigeena xagee ka yimaadeen jawaabta cid badan ma hayso su'aasha dad badan jawaabo ma hayaan qof yiraahdo waxaan ka soo baxay daayeer qof yiraahdo waxaan ka soo baxay garan maayo qof sababta adduunka u jooga aan garanay xaguu ka yimid waa mushkilad qaldan marka aayaddu waxay ka jawaabaysaa ilaahay idin abuuray laba waxay ka jawaabaysaa ilaahay idin abuuray in wax badan idin sameeyay hadad bini'aadmiga dhamaantiin tihiin xitaa kiina aan rumaynin xitaa ka munaafiqiinaya ka warama ilaahay subxaanahu wa ta'ala bini'aadmiga hadduu cuntada ka wada jar lahaa kuwa aan rumaynin madmaleen in halkan ba joogi lahayn inaku min joogi lahayn de ka war hadaan cunto jirin hawada la neefsada aan jirin waxa dhulka ka soo baxaanay jirin bini'aadmiga oran lahaa may wuxuu baa xasiinaya inta aan muslimko kaliya ilaahay ma oran cid kastaba rabbi buu kula hadlay kee rumeeya kaan rumeynba uu irsaaqay adduunkan u sameeyay cirku ka soo dejisay aayadu balleedahay alladii jacala lakum al-arda firashan aayadaha ka dambeeya was-samaa binaa samaha ساس الله سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون دولكو واحدين كسو صار عركو واحدين كسو دجي هو إذن وضع إرساق هذا مركا قفنتو كوي مادو وحكو السيو ونرش هذا معامل ومالك استوى بيلكو السيو وماشت سيحان يسوكو السيو وحدعون يسوكو السيو ميانad احترام lahayn ka miyaanad ka dambeyn lahayn miyaanad qadarin lahayn waxaan adduunka ku noolay waa ilaahay oo miyaanahayn iyo nicmooyinkiisa maxaa markaa laga rabaa aayadu ka jawaabaysa waxay hadaad qirto markaa ilaahay inuu rabbiga yahay hadaad rito inuu ilaahay isagu ku abuuray arin baa laga rabaa markaa aayadu sheegtay arinta mad garanaysaan aayadu maxay tiri u'budu rabbakum rabbigiin aabuda rabbigiin عابدة سؤال مهم جرت مركا ربنا عابدة محي معناه هذا تاعي شهادة كذا ها صدقة ضبحية ها صوم ها حج كتاجها ها لكن من تسع عبادته ماي عبادته انت ما عبادته إلهي دين أبو ري عبادته الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما حتى مركا عبادته مركا دين هدي waxa lagu abuuray wata marka ilaahay subhanahu ya ayuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ummadi ma soo marin bini aadmiga illa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu abuuray kaligu cibaadaystaan hada u firsada walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wa tajtanibu at-taghut ummad bini aadmiga ma soo jirto ma soo marin illa waxa loo abuuray ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligu cibaadato maxay tahay marka cibaadada إنك مسلمين تهلكنا ربعين نسلفها النمركة إلا وإحنا القرآن كنا ندب حرير الله يلنا نربناه إنكم ما أنت إلهي من عبادي سنة عبادة لما منو عبادي سنة ها قاركن ويس صومان ويس صلاة ويس سكودان ويس حجان لكن عبادة أنت عسى كبر أنت ولا لا يلا عبادة وحوي أرورتي مركز توستو هبينكي مركز سيحانيسو يه أنت أرد حيسا وحد سميسا إلهي طريقي سمو وافق سنتي بس إلهي طريقي سكسور جدا هدي أد استأجتو مساجدك أو ترى هذا صلاة بنتكنية أو ترى هذا اهدنا الصراط المستقيم أو ترى هذا إله أو صراط المستقيم أنعمت عليهم إياك نعبد ومركض مصلى ذور استأجتها ماشي كنت كني سنة أتبذكر الدحق الشر دي السؤال بيكون شرط عبادة هذه معناهين أضو حامط أضو عيد أضدك يسقدر أضو قفص عبادة هذه هذا أضدك النعيب كل ماذا عبادة هذه مركب عبادة قفك وح أمد بدلي وح هيد أمد فهمت بهذا الله سبحانه وتعالى كدولي مركا أي كصاب بلو أرورتي مركا توست يهبين كنت تسحنسو يهبين كي مركا تسحنسو ينت أود حيسا نروش هذا وين إلهي وحدوني أتصمنسا شق هذا عبادة النقونسا هردد هذا مركا عبادة النقونسا هذا الكاغ مركا عبادة النقونية عاونت ددك عاوسا عبادة النقونسا وحكستود قبتها عبادة النقونسا إلهنا أجر بكو قرية أنت آمن سنتهي إلهي سبحانه وتعالى دريقي سياد هايسطو وناد قلادات آنت كل عيني ما عاد هذا الكيو ترى توكا أنه تقوبنا مركا عايد وحينو شيء تكو بني آدمي وردن بيكو سعوتا وحيلهي عايد كل شيء بني آدمي وأنا إذن أبوري أنا إذن إرساقا أنا إذن كوهاي أدونكن
la'aantiina ma jiri kartaan arrin yar baan idinka raba oo waliba idinka idin fiican iyo cibaadaysta iyaaka nacbudu markaad leedahay iyaaka nacbudu markaad leedahay ilaahu kaliya baan ku caabudaya waxa leedahay ilaahu kaliya baan ka dambeeya ilaahu kaliya baan ku tiirsanahay ilaahu kaliya baa ilaahi ah waxaan kale bini aadmigu aaminsan yihiin oo dhan ilaahu waan ka koray haddaad sidaa tiraahdo oo markaa aroortii iyo habeenkii iyo inta u dhaxaysana aad ilaahay dartii aanad qaladaad u samaynaynin waxaad samaysoo dhan waa cibaado ilaahina ajar buu kugu siinayaa waana taatay asxaabtu sameeyeen waana taatay ku hormareen waana ta aynana ku doonayno dib u bedelo oo fahamka yara gaabane ah salaadii quraanka la akhriyo masaajidka lagu jiriyo intaasoo ay noqoto noloshayda oo dhan maxay ku socotaa waxaan ku doodayaa hadday mujtamaca muslimka waliba kuwa noo ka dhalana ay sidaa u fahmi lahaayeen dhammaan mushkilaadka haysto dhan habeen qura lagu xallin lahaa laakiin markay aniga ku yimaadaan salaada dhageystaan wadaadku noqdo meherkana kaale iyo akhri cuntadana kaale marka xamsadana quraan igu tuf adduunyadana waxaan u keensanayaa professorada wax igu akhrinaya waalidiinku noocan baa wadaada kaale oo dadna wadaadada noqdaan waa qolo yaro iyagu quraanka aan wax yaro la garanayno iska dee inta khamiiskooda iska xidhaan meelaha iska wareego aan la garanay taasi ma aha cibaadadii talaadin ka rabo inaad cibaado dhaba fahantaan waana fahantaan xiriir cusub inaad quraanka la yeelataan aad iyo aad baad markale aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh